بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحبائي في الله، ودراسينتي كتاب كاني حديث كأها لما رعبحي براء بقول حديث وحانو سوغاني شنشن بانو أغرييني مرة قاركود لح انت بدن شن بانو أغرينا إن شاء الله. حديث كوبي اللباتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البخاري. حديث كان وحاولين يا صوص صاربا نتشذا الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة وحوليه نبي قايل صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل من الكعبين. حديث كان وحكا ليا قابك أي رقو درك أحدان، وانا قضب مهمة oo inay waalidiintuna ku baraarugaan ay muhiim tahay. macallimiinta waxbaraysa ilmaha ee murabbiyiinta ah ee doonaya inay soo saaraan jiil nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku daydana inay baraan waa laga maarmaan mawduucan xooga saaraan. shareecadana waxba kama tegin qaabka musqusha loo galo, qaabka dharka loo xidho, gacanta ay mudan tahay cuntada in lagu cuno. shareecadu waxba kama tegin qaabka haddaba dhar xidhashada u fiirsada. raggaa lala hadlayaa dumarka may. nabigu sal ly slam wuxuu maa asfala wixii ka hoos mara min alkacbayni labada anqow. anqow waa lugaha labada lafood ee anqowa loo yaqaano. wixii ka hoos mara oo min alizaari dhar xidhasho ah, dharkan la xidhanayo, ama khamiis ha noqdo, ama zarwaal ha noqdo, ama macawis ha noqoto, waxa ay dhar raggu ay xidhaan haddayba labada anqow ay ka hoos maraan, nabigeennu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay inta ay maradu qarisay ee anqowa ka hooseeya fi naari, abaalkeeda naar baa laga dhigaa maalinta qiyaama. yacni naar baa la gelinayaa, intanaa qofka loo gelinayaa naar. nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala. maa asfala min alkacbayni min alizaari fi nnaar. riwaayo kale fa fi nnaar. wixii ka hoos mara labada anqow ee dhar xidhasho ah oo raggu dharka ay qabaan ka mid ah, oo ama khamiiska oo labada anqow ka hoos mara, ama zarwaalka oo labada anqow ka hoos mara, ama macawista oo labada anqow ka hoos marta wixii la xidhaba, intaasi marada anqowa ka hooseeya, nabigu sal ly slam wuxuu leeyahay naarta ayaa loo gelinayaa maalinta qiyaama. idan xadiidka waa xadiid cadiima cajiiba khatar ah. abubakar baa u yimid nabigu sal ly slam: yaa rasuul allah, aniga maradaydu hoos bay iiga dhacdaa ilaa an atacaahad, inaan ku dadaalo ma ahane. abubakar waxaa lagu yidhi adigu kuma jirtid kuwa kibirka arrinkaa u samaynaya. abubakar marka taskiyaa la siiyey wuuna dhuubnaa, wuxuuna yidhi ilaa an atacaahad, inaan dadaalo ma ahane. adu ma dadaashaa marka hore? mise marka hore eed marada soo gaabsanaysaba eed harqaanka geysanaysaba halkaasaad geysataa? ragga dhar xidhashadoodu waa waxa anqowa ka koreeya. ilmaheenna waa inaan baro. haddii kale ilmahaaga sooma jeclid. waalidkaa la hadlayaa, ilmahaaga sooma jeclid. annaga waan ku jeesjeesnaaba kuwii sarwaal gaabyada ahaabale, kuwii sarwaalada gaabnaa ee, kuwii taftaxaydnaa ee, kuwii maxaa la yidhahdaa khamiisyada gaabnaa ee. waxaad arkaysaa qof weyn oo markaad ku soo baxdo adoo khamiis gaaba saa kuu eegaya, kula yaaban adiga dhanba. nabigeennana saasuu leeyahay sala allahu alay wasalam, ilmahaaga sooma jeclid qaangaarka ah, bar dharka sida loo xidho. innaga mushkiladeennu ilmaha cuntada umbaan barnaa, cuna unbaan dhahnaa. sida lagaaga doonayo inaad cuntada u barto ooguna dadaasho yaa lagaa doonayaa cadaabkana inaad u barto wixii lagu galo.
oo ay ka mid tahay qaabka dharka loo xidho ma dareentay amsaladaas maa asfala min alkacbayni min alizaari fi nnaar labada anqow wixii ka hooseeya oo dhar xidhasho ah saaxiibkii naar baa loo gelinayaa qaar baa waxay isku dayeen inay dhahaan maya ee xaragaa loola jeedaa xaragadu waa qalbiga wax ku jira xadiidka abu daawuudkana wuxuu leeyahay isbaalku asagaaba min almakhyala asagaaba xaraga kibir ah ana qalbigaaga man ku jiraa may midda kale midka sarwaalka gaabsaday ama khamiiska gaabsaday hadduu kibir u gaabsada ka war iyada lafteeda wuxuu u gaabsadayba haddayba kibir tahay iyo istustus maxaad ka tidhi kibirku ama gaabso ama dheerayso kibirku waa shay gooni ka ah waxan laakiin nabi maxamed baa kaa reebay sala allahu calayhi waaalihi wasalam maa asfala min alkacbayni min alizaari fi nnaar xadiidka 22 can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal almalaa'ikatu tusallii cala axadikum ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري حديث كان الإمام البخاري باصوص صاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحوليه النبي وحويلي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ملائكته ويؤد عيسى على أحدكم مد إذن كاملة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه انت اوفر يا ماشي وكنت كذا انت اوقفك فريو ماشي وكنت كذا ملائك بأدعين ملائكتنا الدعاء ذو مقبول عند الله قارمة ما لم يحدث هدينا ويسدو كتشبين أو ما لم يحدث رواية كلا هدوس الشيكين أو شيكة دنيوي هدوس الجرين شيكة الدنيا ذا بابور باسوق يالي إيو ألابا لسوتش بيه مما غشي إيو هدينا أرمى الدنيوي أوسن جرين وما لم يحدث أما أين ويسدو كتشبين وما لم يحدث ملائكة محيديه تقول وحيلا اللهم اغفر له الله يودن بداف اللهم ارحمه الله النحريس الله أكبر الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وحلقودي رجالين يا قفك مسلم كأهو ماشات كنت كتب الحوغة إنات كن نجاته أو تصبيح سطو أو صدني صدح جر سبحان الله صدني صدح جر والحمد لله صدني صدح جر الله أكبر مركب قال لا إله إلا الله وحده اللهم أنت السلام ومنك السلام بردعوينك أذكارتي قل هو الله آية الكرسي بالترتيب حديث عظيم وهوين وهدان دون إنه الله إنه نحرسته وهدان دون إنه ملائكته إنه دعيسه حديث كلماتين يصدحات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري حديث كان بخاري بالصوص سارية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحوليه نبي وحولي صلى الله عليه وسلم كل أمتي لما أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولبا أمته إيش الإجابة أمد النبي قال الله قيبية صلى الله عليه وسلم أمد حالي أمة الدعوة قال يا مسلم بسوق لي منا وحالي أمة الإجابة وإنت الراعي الرميسي إلهي أن نقدر وأنكون جرنا بإذن الله تبارك وتعالى إلهي أن نقصه اللهم آمين إذا النبي صلى الله عليه وسلم حليه كل أمتي لما أمة ضيدة أوردن
يدخلون الجنة جنة يقلي دونان إلا من أبى قفك رحمة هاني مربو أوه ما دون أيو قفك رحمة هاني قفك رحمة مربو ما هاني انت كلا الجنة يقليان أرن كان الصحابة ويليابين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى رسولك له يابا ديني كرا الجنة هذا جنة يابا ديني كرا الجنة رب العالمين يا ديني كرا أذيك السبب كاغا اللي هو قليو قال في رميش أو صباحنا صلى الله عليه وسلم من أطاعني ما بقى عليه الصلاة والسلام قفك أنيقا أطيعه قفك أنيقا ودد إذا قاضى قفك أنيقا أمر كيغا قاطة قفك وحان كريبي كهرة دخل الجنة حتما جنة قليا ساسو النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام ومن عصاني قفك إيغو عاصية قفك أمر كيغا قادم وايا قفك قول كيغا إيا قول كيسة هرمرية قفك عمل كي أمري وحكرا كدرؤو بدعا إلهي أقول هذا تبارك وتعالى قفكاسي معنى هذا فقد أبى واديدي waxay ka dhigan tahay janno ma rabo waxay ka dhigan tahay jannadii waan diiday khatar soo man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba wa ina nubarra marka xadiidkan iyo ahadiisadan soo maraynay waxay macnahoodu ay yihiin in nabi maxamed raaco sallallahu alayhi wasallam in nabi maxamed diintan lagaga daydo haddaan tukanayno wayna asaga kaga dayano sax haddaan shay cibaado samaynayno cibaadada wayna asaga kaga dayanaa sax haddaanu xajiyayno cibaadadu soo gelayay waa inaan xajka asaga kaga dayanaa sax haddaan reero dhaqanayno caruur tarbiyaysanayno dhaqaalo aan samaysanayno nolosheenna oo dhan ilaahay rasuul baa leh qaala tabaaraka jalla wacala qul ina salaatii ay ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya ومماتي لمن لله رب العالمين لا شريك له إذا نورش هذا رياله حياة هذا رياله جيريد هذا رياله قول عاقة رياله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إذا الله يا رسول قرآن كيسين بدن بذكرتين ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول من أطاع الرسول فقد أطاع الله من أطاعني إلى آخره متابعة لقد دوريا اعتصام بالكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء هذا تكون مرنتان فردوه إلى الله والرسول الله يا رسول علي نور المدوننا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إلهي رسول كيس أجيب إذا دعاكم لما يحييكم هذا إذن كي يرى وحيدا نوليا دي تودن بامركا نولا حديث كمركا أنكو برارون وحديث عظيم حديث كلماتن إيا أفراد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما رواه البخاري حديث كان بخاري بصوصارية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحوليه نبي وحويري صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قفك هدوله ومن باب التغليب رجل ضمربا إذا قال الرجل قفك هدوله لأخيه المسلم لأخيه ولكن سكل مسلم كأه هدو كله يا كافر قال يهو فقد باء ونقم يا به هذا الكاس أحدهما متكود بكل لابنيا لبضو متكمد بو هذا الكادب أوغن نقن حديث كان معنيه سو وحوت الماميا قفك هديما مر إسلام دي سله به أو إسلام دي سو أي سحصون نقطي وحو إسلام ماذا كيبحي كروا الدليل كالوعد وحامرك قفك مسلم كالديد إياه قفك هذه اسخلافتان بين تكون هذا قال باطل كافر باطل مرتد باطل منافق باطل مجرم باطل في فاسق باطل تاسع الديدية
axkaamta noocana qofka inaad dusha iskaga tuurto adigoon hubsanin adigoon ogeyn qofkani wuxuu ku noqday gaal ku noqday oo islaamnimada uu kaga baxay oo murtad uu ku noqday adigoon daliil cad sida qoraxda u cad oo laba qof ayna ku murmaynin adigoon u haysanin inaad qof dhahdo waa kaafir ama waa murtad sida maanta kaararka yar la qaybiyo ee qofka wax yar iskhilaaftaanba aad ku tuurayso waana maanta bulshada muslimiinta qayba ayaa lagu imtixaamay waana firqooyinka takfiirka ee dhiigga muslimiinta banaysta calaamadaha lagu yaqaan cidda iskhilaafaanba inay waa gaal waa camiil waa faasiq inay dhahaan taa macnaheedu kama wado qofka inuusan gaaloobi karin qofka waa gaaloobi karaa way dhacda inuu gaaloobo oo ashyaa cad uu islaamka kaga baxo qofkaasi hadduuba islaamnimadiisu ay burto oo nas cad ay ku burto asna in la dhoodhoobo islaamkuma qabo la waa arrinta irjaaga loo yaqaano wey fikirka le fikrul irjaaga wey kaana waa fikru takfiiri walictizaali iyo waxaa la yidhahdaa walkhawaarij afkaartooda wey ahli sunna waljamaaca labadan bay u dhexeeyaan man habata islaamuhu biyaqiin qofka ay sugnaatay islaamnimadiisu gaalnimo looma saari karo ilaa yaqiin iyo burhaan cad laysa calayhi maxaa la yidhahdaa min allahi burhaan ayadoo yacni wax inaba xujaan loo haynin uu ku joogi kara islaamka in loo helo ma ahane islaamka lagama saari karo intaasoo dhan waa masale digniinteeda leh marka dadka caadada ka dhigtay inay muslimiinta iska gaalaysiiyaan sabab la'aan sharci ah arrintaasi waciid adag baa ku soo arooray waxaad isu soo rashaxdaa ood isu soo taagtaa kelimadaasi hadday ninka uu noqon weydo inay adiga dusha kaa fuulayso oo adigu aad kaafir noqonayso ku talagal khatarteeday noqon kartaa yacni inaad cadaab ku geli kartaba idaa qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir dadka qaar baa haddii inay dadku gaaloobi karinna u haystaba oo wax gaalnimo ku dhici laa ilaha illa allah qofka hadduu dhaho khalaas wey laa ilaha illa allah waa kelimo weyn laakiin nawaaqid bay leedahay la socotaana idaa qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir ninku hadduu walaalkii ku dhaho gaal yahow faqad baa'a bihi axaduhumaa kelimadaa midkood bay dib oogu laabanaysaa rawaahu albukhaari xadiidka maanta darsigeenna ugu dambeeya ee 25aad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal lallahu ashaddu faraxan bitawbati axadikum min axadikum bidaalatihi idaa wajadaha waa gaabaya xadiidku inta waa ka dheera rawaahu muslim xadiidkani imaamu muslim baa warinaya min xadiidi abi hurayrata radi allahu tacala canhu waardaa abu hurayre wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yihi sal ly slam lallahu allah xadiidkan wuxuu ka hadlayaa towbadda qiimaha ay leedahay towbadda qiimay leedahay allahu aclam risaaladan walaalaha soo aruuriyey labadaa xadiid sababta iskugu xijisiiyeen maadaama kaasi dembi weyn qof muslim ayaa kaafir ku dhaha uu dembi weyn tahay ayaa xadiidkan aad moodaa walaaluhu inay u doorteen inuu ku xigo lallaahu alle ayaa ashaddu daran faraxan min farax ilaahay baa ka farxitaan badan bitowbati axadikum min axadikum bidaalatihi axad idinka idinkamida markuu towbad keeno axad idinka idinkamida markuu towbad keeno ilaahay u soo noqdo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu ku farxaa wuxuuna farixiisu uu ka badan yahay min axadikum bidaalatihi nin idinkamidoo baadidiisii helay wixii ka dhumay helay siduu u farxo oo kale idaa wajadaha markuu helo ka daran buu alla u farxaa bilikhtisaar si kooban oo gaaban xadiidkan sababta uu ahaa aan idiin sheego nin baa safray gaadiid buu qaatay geed neefriti iyo wax lamida wuxuu saartay wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabbi lahaa safar dheer buu galay markuu meel cidla socdo ayuu daalay geed buu wax yar hoos seexday ritigiina waa sii daayey ritigii baa dhumay indhuhu kala qaaday ninkii
ritigii buu raadiyey midig bidix horay gadaal waa waayey meesha uu ka yimid hadduu dhaho dib ugu noqo oon buu u dhimanayaa iyo gaajo meeshuu u socdo hadduu dhaho aadna oon iyo gaajo u dhimanayaa ninkani wuxuu xaqiiqsaday inuu dhimanayo ayib wuxuu is yidhi marba waad dhimanaysaaye geedka hoostiisa iskaga dhimo ninka asagoo fikirayo oo geedka hoos jiifa ayuu ilaahay raxmadiisa ku soo degtay markaasuu indhaha isku qabtay sikino markaasuu kala qaaday haddana sarritigiisii oo dul daaqaya oo dul taagan buu arkay oo cuntadiina sida cabitaankiina weli sida markaasuu ninkii intuu farxay oo farxaddii ka badatay ayuu kelimo gaalnimo ah ku hadlay wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk wuxuu yidhi ilaahayow adigu addoonkaygii baa tahay anigana kii ku abuuraanay faraxii baa ka batay nabigaase u cudur daaray oo yidhi akhta'a min shiddati alfarax ninkaa wuxuu hadalkaa u dabamaray oo sawaabkii u gafay oo khaladka u galay farax daraaddii looma qabanayo xale qofka markii la gaalaysiinayo waxaad ogaataan xadiidkan iyo xadiidka hore isku xidhan yihiin cajiibe kelimo kasta oo qofku ku hadlo gaalnimo ah ama ficil kasta oo gaalnimo oo qofka ka dhaca waa shay gaalnimo ah laakiin qofka uu waxaa ka dhacay qasab ma aynu ku gaaloobi karo waxaa jira waxa la yidhaha taxqiiqu shuruud waintifaa almawaanic culamaa ulcaqiida baa si fiican u yaqaan takhasuska caqaa'idka dadka baa si fiican u yaqaan qofkani shuruud laga doonayo inuu in laga helo iyo waxyaabo laga doonayo in laga waayo baa u diidi karaa maxaa ka mid a jahliga waxaa ka mid a maxay khata ah idan ninkan maanta ma gaaloobin khata baa carabkiisii soo maray khata ana gaalnimuu gaadhsiiyey kelimadu waa gaalnimo laakiin saaxiibka ma gaaloobin akhta'a min shiddati alfarax ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam markaasuu nabigu xadiidkan aqriyay lallahu ashaddu faraxan bitawbati axadikum min axadikum bidaalatihi marka waa ilaahay wuxuu na jeclaysiinayaa towbada iyo inaan asaga ku noqonno asaga u laabanno tuubuu ila allah jamiican rabbi u laabta kulligii ayuha almu'minuun waad liibaanaysaan lacalakum tuflixuun man taaba taaba allah qofka toobad keena ilaahay baa ka toobad aqbala ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat xataa haddaad toobad keento xumaantii baa wanaag ilaahay kugu bedeli tabaaraka jala wacala wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lahu in badan buu wallahi inii la astakfiru allaha wa atuubu ilayhi fi lyawmi akthara min 70 mar in badan baan ilaahay u toobad keenaa 70 iyo 100 jeer 170 intaba nabigu waa sheegay sala allahu alayh wasalam ilaahay waxaan ka baray inuu toobadayada aqbalo ilaahayna waxaan ka baraynaa diinta inuuna fahamsiiyo faham dhab ah allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaacah wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaabah intaanu kaga kulmayna xalaqa aantan ahayn waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astagfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.